ilo lagu kalsoonaan karo ayaa National TV u xaqiijiyay in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu aqbalay go'aankii ugu dambeeyay ee ismada Puntland ay ka soo saareen xaaladda magaalada Boosaaso uuna qorsheenayo in uu safar ku tago magaaladaasi isagoo doonaya inuu dejiyo xaaladda magaalada Boosaaso oo xilligan meel adag maraysa. madaxweynaha Puntland Saciid Deni oo laga sugayo in muddo kooban uu ku soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka ayaa waxa culays ka haysta magaalada Boosaaso oo u dhawaan ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamo isaga ka amar qaata iyo kuwa kale oo ka tirsan BSF-ta. in Saciid Deni uu aqbalo go'aankii isimada ay dad badan wax la yaabo ku tilmaameen. go'aankii isimada ee ugu dambeeyay waxa qayb ka ahaa in wareegtadii madaxweynaha Puntland Saciid Deni laga laabto hay'adda BSF-tana uu sii hogaamiyo General Maxamuud Cusmaan Diyaano, in hay'adda DB World la ciiriyo in 17% qoondada dhaqaale ee ka soo xarooda dekedana la siiyo horumarinta Boosaaso iyo in guddiga maamulaya ay noqdaan kuwa isimada Puntland ay soo magacaabaan kuwaas oo lagu kalsoonaan karo. Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maalmaha soo socda la filayaa in uu safar ku tago magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari si uu u soo eego xaaladda halkaasi ka jirta. dhinaca kale wararka Boosaaso intaan ka bixin magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxa ka taagnaa laga soo bilaabo dabayaaqada sanadkii 2021 dirir iyo colaad sababtay dhimasho, dhaawac, burbur hanti iyo barakac. dagaalka ayaa ka dhashay xilka qaadis madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uu ku sameeyay agaasimaha BSF-ta Maxamuud Cusmaan Diyaano 24 November ee sanadkii hore 2021 balse gaashaanka ku dhuftay xilka qaadistaasi. hub aruursi Deni iyo Diyaano ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso ayaa sababtay in 21 December ee sanadkii hore uu dagaal ka qarxo agagaarka dhismaha madaxtooyada Boosaaso kadib markii ciidanka ka amar qaata madaxweynaha Puntland ay hareereeyeen askarta BSF-ta ee la safatay agaasimahooda xil wareejinta diiday. waan lagu dejiyay xabad joojin ayaa fashilantay 23 December waxaana markii dambe ku baxay isimada dhaqanka madaxweynayaashii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole iyo Cabdiwali Gaas, ra'iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid iyo siyaasiyiin kale. xabad hadda kama socoto xarunta gobolka Bari ee Boosaaso balse waxaa hoos ka nool dabkii lagu gubtay. colaadaasi waxaa ku xirmay dekada Boosaaso oo badeecada laga soo dejiyo la geeyo ilaa gobolada dhexe iyo bartamaha dalka. gaabiska ku yimid dekada Boosaaso oo ganacsi ahaan ay ku xiran yihiin inta badan gobolada dhexe ee dalka waxa isbedelay qiimaha maciishada noocyadeeda kala duwan waxaana kordhay wax ku dhow 30% magaalooyinka waaweyn ee dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland. qiimaha cuntada ee gobolada Bari, Nugaal, Mudug, Galgaduud iyo Hiiraan ayaa kacay sababo la xiriira gaadiidka Boosaaso ka soo daabula cuntada oo joojiyay shaqadaasi iyo dekada oo shaqadeedu istaagtay intii ay socotay colaadu. arrinta sii murjisay dagaalka iyo colaada ka taagan Boosaaso ayay madaxdii iyo odayaashii ku jiray waanwaantu ku sheegin in ay tahay dagaalka oo ka dhex taagan dowlad goboleedka dhexdeeda taasi oo ka culus kana adag marka ay khilaafyadu ka dhex dhacaan dowladda iyo koox ka baxsan dowladda. hadda xaaladda Boosaaso ayaa degan. madaxweynaha Puntland waa uu ogolaaday in uu qaato go'aankii isimada Puntland ay ka gaareen xiisada Boosaaso.